shirkii khamiislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo uu maanta shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Said Aadan ayaa waxa looga hadlay xaaladaha amniga iyo siyaasadda guud ee Jubbaland iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen aasaasida iyo hakinta deegaanada cusub ee Jubbaland. dhanka kale waxaa shirka golaha wasiirada warbixino kala duwan looga dhageystay wasaaradda dhowr oo ay ka mid ahaayeen wasaaradda gaadiidka, wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta. markii uu soo ilaaday kulanka shirka golaha wasiirada ayaa warbaahinta waxyaabihii looga hadlay u akhriyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Said Aadan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta sida arkayseen shirkani khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ayaa noo qabsoomay. Allah ku mahadsan. shirkan oo ajandihiisu ahaa warbixinta xaaladda amniga iyo siyaasadda deegaanada Jubbaland, joojinta asaasidda abaabulidda tuulooyinka cusub inta xaaladda ammaanka ka hagaagayso, warbixin laga dhageystay wasaaradda gaadiidka, warbixin laga dhageystay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, warbixin laga dhageystay wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta halka uu maraya dhismihii garsoorka, dukumiinti ay soo bandhigeen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, dukumiintigaas oo ah carwa lagu qaban doono carwa ganacsi lagu qaban doono magaalada Kismaayo soo socotay habkii abaabilkeeda halkuu marayo, warbixin laga dhageystay wasaaradda xanaanada xoolaha oo ay kaga hadlayeen caafimaadka xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo wixii kale oo dheeraad ah. goluhu saacado dheer kadib dood iyo falanqeyn waxay gunaanadka isla gaareen qodobada soo socda. kow, arrimaha siyaasadda iyo amniga in golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland si midaysan ugu shaqeeyaan midnimada iyo horumarinta dadka reer Jubbaland, ayadoo isla markaana golaha ay walaac ka muujiyeen habdhaqanka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu ka wado qaybo ka tirsan gobolka Gedo, taas oo ay goluhu u arkeen inay keeni karto isku dhac bulshada dhexdeeda iyo ammaan darro. qodobka labaad, waxay goluhu joojiyeen ama mamnuuceen asaasidda abaabulidda tuulooyinka cusub oo aan waafaqsaneen shuruucda iyo shuruudaha u degsan sida ay tuulo ku asaasanto. sidaad ogtihiin Soomaaliya waa dal jiray, shuruuc baa jirta, tuulo shuruuday leedahay inay meeshaas tuulo noqoto. beel baa ka sii weyn, degma ku xigta, dhammaantood shuruuday leeyihiin. shuruudahaas waxaa fulintooda u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha. marka maadaama dalkii ammaanka aad ogtihiin xaaladiisa halka ay marayso, halgan lagula jiro kooxaha argagixisada ah, inta ammaanka ka hagaagayo oo shuruudahaas laga waafajinayo, waxaa reeban inay kooxu ama dad isku dayaan inay asaasaan tuulo, taas oo keeni karto ammaan darro deegaanka ka keeni karto ayadoon waafaqsaneyn shuruudaha. sidaa darteed goluhu si buuxda ay iskugu raaceen in la joojiyo, ayagoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland amar lagu siiyey inay arrintaas qoraal cad ka soo saarto. qodobka saddexaad, iyadoo la tixgelinayo warbixintii wasaaradda gaadiidka ee ku saabsanaa qaadashada liisamada iyo gaadiidka shacabka dhinaca albaabka ku leeyihiin oo khatar ku keentay halisna ku ah nabadgelyada shacabka, maadaama ay jiraan baabuur dhinaca saadka laamiga xiga ama wadada xiga dadka ku dejiyo, taasoo dadkana khatar ku galaan. khamiista soo socota waxay goluhu u yeereen maareeyaha dekedda Kismaayo si arrimahaas xal looga gaaro. qodobka afraad, waxaa jiri doona daahfur loo sameynayo qorshaha horumarinta Jubbaland ama istiraatiiji balaanka, kaas oo ka dhici doona Nairobi, waxaana lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha dowlad goboleedka Jubbaland in ku dhaqanka dukumiintiga istiraatiiji balaanka oo golaha wasiirada meelmariyaan madaxweynuhu inuu digri ku soo saaray inay meelmariyaan ku dhaqankiisa, kaas oo ka kooban tiirar dhammaantood
arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dib u dhiskii wax walba tilmaamaya si aan u noqono ummad garanaysa meeshay ka bilaabatay iyo meeshay ku dhammaanayso. qodobka shanaad waxaa la ammaanay wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta guulihii dhowaan laga soo hooyey tartamadii aqooneed sida xagga arrimaha diinta iyo xagga aqoonta ardadii dhex martay taasoo dhammaan ay Jubbaland ku guuleysatay iyadoo la wada ogsoon yahay in dowlad goboleedka Jubbaland hore ay ugu guuleysatay koobka kubadda cagta. isla markaa wasaaradda cadaaladda dastuurka arrimaha diinta waxay goluhu ku dhiirigeliyeen in ay ilaaliso ku dhaqanka xeerarka iyo shuruucda u degsan dowlad goboleedka Jubbaland taasoo ah sareynta xeerka leh ama sharciga leh. wasaaradda xanaanada xoolaha waxay cadeysay inuusan hadda jirin ama gaala Jubbaland deegaanada Jubbaland ku nool uusan qabin cudurka la yiraahdo Rift Valley. xoolaha lagu qala magaalooyinkan ay u diyaariyeen team baara caafimaadkooda. xoolaha aan caafimaad lahayn aan lagu qalin isla markaana dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku dhiirigelinaysaa inay xoolaha u raadiso daawo iyo wixii kale oo xanaana. wabillahi tawfiiq intaas. Axmed Maxamuud Axmed Mercury telefishinka dowlad goboleedka Galmudug Kismaayo.